waxaa la qorsheeyey markaan soo ururiyo inuu qabsoomo hal maalin oo guddi fulina oo ka horeeya shirweynaheena 3 maalmood oo kala fadhi ah oo kulligood u gogol xaadhaya inuu shirweynahani hawshiisu fududaato shalay baa la soo gabagabeeyey hawshii hore ahayd guddiga fulintana 26 uu qabsoomay 3 maalmood oo ka bilaabatay 27 28 waxaa socday kala fadhigii maantana waxaanu fadhinaa shirweynuhu si uu qabsoomo waxaa la gartay in shirguddoon aan ku wareejino xilka oo halkaas soo jeedin kala fadhigu soo jeedinaya waxaa la qabtay guddi ka kooban 3 مسؤول جبهات وحلال الرسقة هي جبهة وقدومية وياهي هالجامع عبد الله واس محمد غني عبد الله هنا استكتان شعران هنا يكون كان عبد الله هالجامع حسين نور إيوه هالجامع أحمد واس مشيرتين صدح ذا حبنات وحن قررنا إنه قلنا حدان هاي مسوي شيء إنك ergo shirweynaha soo hor fadhiisanayaan inay la wareegaan xilka hagidda iyo daadihinta shirweynaha iyagoo la raacayo barnaamijyadii hore loogu soo dejiyay oo ku cadaan doonta iyaga idin sheegi doona barnaamijyada waxa guddigaas iyo xogeyn iyagu qabtaan oo fara badan iyo guddiyo fara badan oo farsamo la shaqeynay yaa si rasmi ah aan rabaa inaan ugu wareejiyo xilkii qabanqaabada annaga hawshii qabanqaabada halkaas ay naga eg tahay waxaan bar si gaar ah u mahadcelinayaa xubnihii la shaqeeyay iyo dhammaan mas'uuliyiintii iyo xubnihii jabadeed ee hawsha qabanqaabada inay suurto geli waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogno kulligeen inagoo joogna oo xarafka shiinka inta badan soo noqday oo hanku ahaa in la sii wanaajiyo la sii dardargeliyo halganka isla markaana kolba marxaladaha cusub wixii tagayna si fiican loo reflection si fiican loo qiimeeyo waxa taalada hadda taalana waxa joogana si fiican iyo dhab fiican loo rugo loo arko si mustaqbalka insha Allah ilaahay inoo halaalsiiyo inoo bariyeen ilaahay inaynu helo xikmad iyo basiira fikrad inoo suurto gelisay inoo sahasha inagoo isku duuban aynu kaga dhabayno hankeena weyn ee ah shabada xoreynta wadaniga waadeeliya iyadoo bas tala saaranaysa abaabulaysa shacbigeeda hawlgelinaysa xubnaheeda taageerayaasheeda jihaynaysa hawlgelinaysa barnaamijyo cilmiyaysan ku jihaynaysa ciidankeeda wadaniga xoreynta waxay higsanaysaa inay heeryada gumaysiga ka faydo dalka oo gaarsiiso shacbiga Soomaalida ogaadeynaya xornimo taama iyo ay ka tashi gaarsiiyo ummadaas nolol lagu naaloodo ifka iyo aakhiro jannadii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka codsanayaa 3 mas'uul ee la magacaabay inay yimaadaan halka kadibna shirweynuhu ansixiyo kadibna ay hawshooda la wareegaan والسلام عليكم ورحمة الله aad buu u mahadsan yahay jenaraal cabdullaahi mukhtaar oo waqtigii loo qabtay in ka yar ku soo gebagabeeyey hawshii xil wareejinta ee guddoomiyaha ka ah guddoomiyihii guddiga qabanqaabada shirweynaha saddexaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya aad baan ugu mahadcelinaynaa si uu shirkii si rasmi ah inoogu furmo oo ay furayaan guddiga cusub ee loo igmaday waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha guddiga cusub ee shirweynaha saddexaad mudane ugaas cabdullaahi ugaas maxamed qani si uu shirka si rasmi ah inoogu furo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرت دمانتي وإذا ماذا السلام هيا وأنا إذا كسر دوين إن حبني يجوه الريبة سر دوينتي أنت قاطي
guddiga qabanqaabada iyo ergooyinka iyo dadka halkan yimidba way mahadsan yihiin. Sidii hore loo sheegaybana dadkan waxay ka kooban yihiin qiyaas ahaan sida ay noo diiwaan gashan 13 dal oo adduunka ka tirsan oo ku kala yaalla 5 qaaradood ee adduunka. Dalalka qaarkoodna baaxadda ay leeyihiin iyo shacbigeenna tiradooda darteed ay gudihiisa ka jiraan dhowr jaaliyadood. Marka jaaliyad la yidhaahdo ama hal dal buu hal jaaliyad ka jirtaa ama dalalka qaarkood dhowr jaaliyadood baa ka jirta. Marka waa wax lagu farxo. Dhowr marxaladood buu shirweyn hawshan qabanqaabadeedu soo martay. Midii uu inooga warramay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada waxay ahayd marxaladdii koowaad ama phase-kii koowaad bay ahayd oo maaragtay hawsha inteeda badan ay ku soo dhacday. Waxaa ku xigay marka phase kale oo halkan ka dhacay intii aan halkan joognay oo guddiga maaragtay golaha sharci dejinta ee ururku isna waxyaabihii dhimanaa uu kusii dhammaystiray. Phase-kii saddexaad ama marxaladdii saddexaad weeye tan aan hadda u fadhino. Haddii marka labadii marxaladood ee kuwan ka horreeyey ilaahay mahadii si fiican bay inoogu guulaysteen, aad iyo aad bay inoogu guulaysteen. Marxaladda saddexaad oo aniga iyo guddigayga iyo idinka halkan fadhiya ay gacanteena ku jirto ilaahay ka sokow, iyadana waxaan rajaynaynaa in ilaahay inoogu guuleeyo marxaladda saddexaad. Idinkuna aad qayb ka qaadataan, annaguna aan qayb ka qaadano. Sida la magacaabay shirweynahani waa shirweynihii saddexaad. Waxaa ka horreeyay marka hadduu mar saddex yahay laba shirweyne oo ah shirweynayaal rasmi ah oo ururku lahaa iyo laba shirweyne oo aan si fiican u diiwaangelin oo maaragtay astaamaha shirweyne sida aan hadda u garanayna ka yar hooseeyey laakiin taariikhda ururka shirweyne ahaa. Mid wuxuu ahaa shirweynihii ururka lagu aasaasay ee ururka maaragtay bilowgiisa ahaa 1984 Agoosto oo kii ururka lagu aasaasay ahaa. 1986diina mid labaad buu ahaa. Labadaa shirweyne marka maadaama astaamo buuxo oo shirweyne ayna lahayn taariikhda kuma jiraan. Markii innaga dhexdeena aan nahayna waan sheegaynaa, markii si official oo taariikheed loo diiwaangelinayana badanaa tirada kuma daro. Shirweynihii marka koowaad ee diiwaan gashan waa shirweynihii dalkeena gudihiisa ka dhacay 1992. Shirweynihii kusii xigayna waxaa 1998. Kana waa shirweynihii saddexaad oo u fadhino. Shirweynayaashaas iyo taariikhda iyaguna guul bay kusoo dhammaadeen. Kana waa kii saddexaad oo isaguna aan rajaynayn inuu guul ku dhammaado. Sida la sheegay waxaan ka koobannahay 8 xubnood. 3 xubnood oo halkan laga magacaabay oo maaragtay aniga iyo labada xubnood ee kale oo halkan laga sheegay iyo 5 xubnood oo kale oo xooghaynta nala ah. Waa guddiga shirguddoonka rasmiga ah ee halkan fadhiisan doonta ee hawsha maamuli doonta. Waxaana sii hoos imaada marka dad kaloo fara badan oo shirka nidaamintiisa nala qaabilsan oo iyaguna maaragtay hawsha maamulkeeda qayb ka ah. Sida uu marka sharcigu tilmaamayo in annaga aad idinkuna ansixisaan way inaan hawshii la wareegno, hawshii ururka, hawshii shirweynaha inaan la wareegno, inaadna ansixisaan si aan hawshiina usii wadano. Marka haddii aadna ansixiseen hawsha anadaan bilaabanayna, haddii kaletana waa awey groupkeygii marka 5 xubnood labada iyo 5 xubnood ee kale halkan soo fadhiista marka Shaafi, agteeda istaagnaada marka waxaan ka koobannahay saddexdaanadan meeshana laga magacaabay. Xooghaynta kale ee hawsha nagula jirtay 5 marka waxaa weeyaan Liibaan marka Kawsar baan ka bilaabaynaa. Liibaan, Maxamed Daahir Alhaye, Shaafi, ninka hawsha inoo waday waa maaragtay Ibraahim. 8 ulaah ku magac dheer. 8 daanadaas waa 8 aad arki doontaan halkaa fadhida. 10 xubnood oo iyaguna shirka nidaamkiisa qaabilsan oo halkan taagnaan doontaa jirta oo ladin bari doona si aad iyaga uga amar qaadataan.
oo nin walba hawsha loo xilsaaray hadhow aad ugu hoggaansantaan marka hawshii baanu bilaabanaynaa idinka ansixintiina kadib tobanka ansixin uma baahna waa inta annadun inta la ansixinayo ibraahim ula baan dib ugu soo dhaweyno marka wuu mahadsan yahay guddoomiyaha shirweynaha saddexaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya daadihin doona waas cabdullaahi waas maxamed qani sida uu idiin sheegayna saddexdaa xubnood iyo 50 xubnood oo lasoo proposal gareeyey waxay sugayaan ama yeelistiinna ama diidmadiinna haddii aad tiraahdaan uma qalmaan halkaasay ka degayaan haddii aad tidhaahdaan way u qalmaanna kuraasaas ku fadhiisanayaan ansixintiinna marka la sugayo suu waqtigu inooga khasaarin waana loo codayn codku xaggu u bataana la raaci haddaan dareenno gacmo badan inaan la taagin waa la tirin haddii aan laakiin dareenno in aqlabiyad lagu codeeyey waan ansixinaynaa saa daraaddeed iyagoo isku duuduuban sidooddoodaba in ay noqdaan xoghaynta shirguddoonka iyo xoghaynta shirweynaha saddexaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya yaa taageersan dejiya idinkoo mahadsan yaan ku qanacsanayn sheekh xasan okay sidaas ayay ansax ku yihiin kuna hogaaminayaan shirweynaha saddexaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya waad mahadsan tihiin waxaan ilaahay ka baryahayaa waxaad noo doorateen eed nagu kalsoonaateen inuu annagana noo fududeeyo barnaamijyo dhowr ah oo ajandayaala ayaa maanta inoo yaalla aad u xiiso badan marka waqtiguna maaragtay bilowgii buu inaga daahay oo inta ka hadhay waan ku dadaalaynaa bal inaan waqtiga isku soo celcelinno waxaan ku wareejinayaa ibraahim uula oo inoo daadihin doona sida uu shirku u socon doono isaga ayaana kalba u yeedhi doona kalba qodobka ku xiga iyo ruuxa ku xiga ibraahim marka shaqadaada qabso aad buu mahadsan yahay